أنت أسكت بالله ورن كلن كمان كده عن جامعة وحبيبي كوسابسا كلن كمان كده عن جامعة كوسابسا أتصل لبعض ونسوجين كذا شركة جوبلان وانتي كذا كذا iyadoo aan uga faa'iideysanayno aqbaliyada maaragtay bisha barakeysanaya Ramadaan aan ognahay in badan oo ka mid ah inay doonayaan inay familiyadooda u noqdaan aan isniri hal kulankii ugu dambeeya isla yeesha kaasoo aan daba dhignay codsi ah in muddadii magacaabista golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka gabagabanaga yahay sidaa darteed ay lagama maarmaan noqotay inaan codsi labaad u jeedo codsigaa labaad aan u jeedinay si aglabiyada wanaagsan ay nooga aqbaleen ayagoo runtii u leh awood wax ka bedelidda sharciyadda dhinaca maaragtay dastuurka Jubaland State kaasoo ay naga aqbaleen dhammaantood runtiina aan uga mahadcelinayno saddexdaa qodob in la fiiriyo muddadii oo in la kordhiyo laga maarmaan ay noqotay in la kordhiyo baarlamaanka ayadana loo arkay arrin muhiim ah maadaama Soomaaliya dhanka u ogan tahay iyo kan saddexaad oo aan rabnay inaan codsan xataa golaha wasiirada in la ballaariyo laakiin arrintaa aan iska daynay maadaama dowladda federaalka ay golaheeda wasiiradu ay toban yihiin taawna aan ku aadino wax tiro badan haatan aanay wax wanaagsan waa markaa muddo intee leeg ayaa la kordhiyay muddada hadda la kordhiyey la codsaday lana kordhiyey waa 13 bishii aynu soo dhaafnay ee June sidoo kale kulan halkaan ka dhacay ama xarunta jaamacadda ka dhacay waxaad ku dalbateen in muddadii la dii kordhiyo 27 maalmood ayaa la idinku daray haddana 30 casho ayaa dalbateen oo waa la idin kordhiyay maxay tahay caqabadda weli in hortaagan runtii caqabada ma jiro caqabad waxa ma jirto waxa kaliya oo jira waxa weeye wada tashi tiro badan in la sameeyo wada tashigaas oo qaybo badan ku jiraan ugu horeyso dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii wada hadallo bilow ah oo isfaham ah oo hadda maaragtay noo bilowday taasoo aan rajeynayno in la isu soo dhawaado si markaa fursadda qaaliga aan loo dhumin annagana isniri way habboon tahay in hakad yar la geliyo si isula jaanqaado sidoo kale waxaa soo baxaya in la kordhiyay tiradii xildhibaanada maamulka oo markii hore dastuurka uu dhigayay in tirada xildhibaanada maamulka Jubaland yihiin 65 xildhibaan arrinta maxaa noogu sheegi kartaa kordhinta xildhibaanada waa run xildhibaanada waa la kordhiyey waxaase lagu kordhiyey 10 madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay soo magacaabi doonaan maaragtay muminiin halkan waxaa degan qabaa'ilada Soomaalida oo dhan 65 waxaa sameeyay ama ku filan weydaa jaangooyooyin badan iyo xisaabo badan iyo waxyaalo badan ay sameeyeen waxaa noo soo baxay inay laga maarmaan tahay in 10 hor lagu daro oo 6 ka mid ah noqon doonaan dumar 4 noqon doonaan dastuurka 65 ayaa ku qoran marka Soomaaliya in hadana mar kale dib u qoris lagu sameeyo dastuurka oo tirada lagu kordhiyay lagu qoro waa sax weeye dastuurka 65 baa ku qornay laakiin dastuurka awoodiisa wax ka bedelida ilaa baarlamaanka laga dhisay waxa iska leh ergada shirka sidaa darteed ayay waxay qaateen qodob dastuuriya oo u ogolaanaya inay wax ka bedelaan meeshii 65 ay ka dhigeen 75 عبدغني واحد شيء إن وده هذا الله بالله أو إسفهن أي ليس عضان دولة فدرال في الصومالية مركا إلا يهدو واحد طلابة أو وده هذا الله سيك صوب حي مية وده هذا الله سكب الله هذا سكي لكن له مبارك يدي له فيها تاسو
labada qoloba heshiiskooda hadda yahay bal in hubka la dhigo la wada hadlo wada hadalladaasna aan rajaynayno inay noo maaragtay hogaamin doonto in si fiican isu fahmo in hubka la dhigo maxaad ula jeedaan may waxaan ka waday waxaa naga dhexeeyey colaadaas ma dhihi karo colaad weyn weeye laakiin colaad isfaham darra sidaa u baan ka wadaa oo isfaham darrada in meel la sii maxaa ka jira in shirkii Addis Ababa ka dhacay lagu wada hadalsiinayay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland dowladda Soomaaliya ay ogolaatay in 2 sano la siiyo maamulka Jubbaland markaas maxaa ka jira arrimahaas ma arko anagu aan ka warqabo laakiin in la wada fadhiistay waa jirtaa laakiin waxyaalaha farsamada weli uma lahayn ma laga wada